halkani waa RTN. kulanti waxaan wanaagsan idil ahaantiin baaqiyaarta ayna daawanaysa meel kasta oo aad joogtaan. halkani waa RTN, kusoo dhawaada barnaamij gaar ah oo ka bedelan barnaamijyadii hore ee aad ka daawan jirteen RTN xarunta dhexe aynu ku leenahay magaalada Nairobi. talow barnaamijka caawa ma fan buu ku saabsan yahay? maya, ma ciyaarihii aad taqaaneen iyo sportiga aynu qaadaa dhigi doonaa maan garan. warar miyaynu halkan ku faaqidi doonaa mase sheekooyin kale ayaa jira intaa iyo in ka badan? farxiya ay hareer fadhiisa maxaynu sheegi doonaa? horta habeen wanaagsan ma dhahda daawadayaasha. ma habeen baynu joogno horta? habeen wanaagsan hadda iyagu waa dareemi karaa inay habeen tahay moogtahay. nolol iyo waxbaa shisheeye magaalooyinka baawar marmarayo waxna lama arko moogtahay. ma la arko marka habeen inay taana way dareemayaan. marka hore habeen wanaagsan ayaan idin leenahay dhammaanteena. sida Barrow uu u sheegayba caawa horta ani kulmadaa diinayo gooniyan fadhiya soo ma barnaamijka waynu wada sheegi doonaa dadkana la wada hadli doonaa. waxa ka daran ma taqaanaa muxuu yahay barnaamijka? kii farsamo gadaal ka fadhiyay mid aanay kaamirada qaban jirin, mid dadka ayna arki jirin, mid codadkiisa uun TV-ga laga daawan jiray isaga aan la arki jirin. intaba caawa looda arkaya, laakiin dadka waxa meesha wada keenay maamul iyo madax iyo shaqaale RTN ba كنا أوشك تاني كوجو يا رموكت. أديات. فصايبوا على. ويا هاي داود يا البرنامج كان سيد برو وشيء جاي وكدوية هاي برنامج هذي التلفزيون كذا براتين أو مرة اللي بعد كده وينجرتين هدي هاي تهاي مال لا يولي بتضبع لا عوا برنامج واحد وكساب سين مركز له دتكم حلين محو كساب سين. وكساب هي أنت من أوشيجين. farsamayaqaanka haddii uu qaato mid ka mid ah muuqaalada kale halkaa roog casbaa yaala iyo dadka fadhiya dad baa xaggaa fadhiya RTN ka tirsan madax iyo shaqaalaba ah qaybtii ciyaaraha ka faaloon jirtay sportiga ayaa dhinac kala fadhiya roog cas oo magaca RTN iyo magaca gaara ku qoran yahana halkan bay ka muuqanayaan. waxaynu uga dan lahaynaa barnaamijka caawa barnaamijkan waa barnaamij ay tiimka RTN isku duuban iyo sidoo kale marti kale barnaamijka ka qayb galaysaba ay ku sagootinayaan Ibrahim Geedow Cawaale Super Biban xoog loogu yaqaan. aad iyo aad Ibrahim Geedow Cawaale wariyihii ciyaaraha ee RTN iyo waliba barnaamijyada kale ka soo muuqan jiray ayay noqonaysaa barnaamijkii ugu dambeeyay oo RTN kaga daawan doontaan. caawa ka soo caawa taariikh kala duwan Ibrahim Geedow ka sheekayn doona sida uu soo barbaaray ciyaaraha waxyaabaha uu ku jeclaaday noloshiisa waxyaabihii uu adkaa u soo sababtoo uu noqday tabiici ciyaare RTN oo kamid ahaa dadka dhigayaasha ah waxyaabaha sababay in ay ka soo muuqdaan iyo dad kale waxa jecelahay qadar iyo sidoo kale Cabdixakiin iyo team kala hadda nagu soo biiray abti fanka ninkii odaga ahaa oo faawaka xagga uga jeeda aad biibsha noo yimid biibsha inay nagu soo biiraan barnaamijka qayb doona wata farxiisada oo sheekibaan Geedow ayaan caawa maxsalaameyn doona guud ahaanba RTN muddo ka soo shaqeynay aad Ibrahim Geedow Cawaale oo anigu aan kamid ahay dadkiis la soo bilaabeen shaqadan RTN ana horeeya ayaan caawa maxsalaameynayna barnaamijkuna sidaas ay ku saabsan yahay sida aad boorka dhulka yaalaba ka aragtaan oo Ibrahim Geedow Cawaale uu ku qoran yahay. waxaana loo qabsan doonaa waqti afaf qalaad baa meesha ku soo qorateen maxaa Soomaali loogu soo qori waaya isweydiin doonaa. marka ila Soomaaliya Soomaaliya waynu ka dhigan doonaa. Ibrahim Geedow waxa uu ahaa saaxiib wanaagsan shaqaalaheena kuwa ugu qiimaha badan ee nala shaqeeya iyo walaal markastaba in nala dhashay aynu tabi doono macnana ku ahaa RTN waxay u rajaynaysaa nolol wanaagsan iyo goobta Geedow u yahay in muraha gumashka uu ka gorto gumash macanta waliga maya watahay goba cuna laakiin maxaa gob من ده جمع شيء جمع قول معايا جمع اللي يرضى على سويدين كلا يا تغنى يا الكدوسي صادق تجب سفي على يقانا حمر جب ما كودا حمر كودر نوع كصوتك تي وتاي أرض ضدك إبراهيم جيتو أنت إنه كوب لابن قبته وصعده صوبها وتجيو سيد عيارها وقصة بلابي يتبينته وحنا جعلنا هاي ضدك إن الدعوة يمت كم ده فرحية إن نتصله البرنامج ده وصوت بيكو وقيمها بدنا ولبا كويسي عيارها وضدك بدنا يقينين إن ضدك أي داودان كبعد والله ما ضلنا إبراهيم جيتو يبرامج كعاوة وكسب سنة فرصة أيها قعد سنة إن إبراهيم كي نتصل
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا وناكسن داوديال ميل كستو أجوبتان كسو دوادا مركليو برنامج كماندي فوتبول وهذا هنو كليات كداوتان تلفزيون كRTN إسني والبا برنامج كعلابو حنو كسو قادنا فايندا يفلنقنا كسابسن كل مدى حيسالة هريالة كبدا عكتة قارة يوروب قارهان هريالة حيسالة إنجليز كترياني إسبان يو هريالة كلا يوروب qodobada barnaamijkeenu ku eegi doonana Isniintan waxa kamid ah xilli fiican uu soo beegmay runtii soo saalax sheego waay horta horyaalka laba is arag waay Ibrahim wala socota is arag hore is arag dambe markay is arag hore mostly waa qofkii soo arkay August iyo soo arkay December na aragtiin maxay shablaal oo sharax doon horyaalka Faransiiska ka bilaabi doona kulmo adag toddobaadkan la ciyaaray oo kooxda Nice isla yaab loo hogaaminaysa laakiin kastoo toddobaadkan barbardhac booqdo shablaal hadii shaashada tagtid oo doonaha u sharaxno sida lagu kala nastay sanadkan horyaalka Faransiiska hadii ku bilaawno si la yaab loo hogaaminaysa Nice laakiin PSG Ibrahim Fiche uu lusgareeyeen waxaas dhigi karaa waxay lusgareeyeen kubadii maxaa la balansigeeyay mar walba winkeed horyaalkan oo Ibrahim hada aragtid horyaal adag ah oo maxaa la laftiisa jilc lagu soo galo shaqada caadiga ah gobol oo Afrika watahay runtii wuxuu ahaa barnaamij xiiso leh waa la timi doonaa barnaamijyada noocan oo kale waxna ahayd barnaamijyada qaabka loo tabiyo kuwa ciyaaraha habkii ugu wanaagsanaa laakiin farxiyo waxaan arkayay intuu muuqaalka socday oo qaabka bixinaysa oo shabalaala ku dhagan muuqaalkan horta waqti hore maadaama waxay ka soo wareegteen shabalaala iska bedelay waxa shabalaala xilliga xogaa wajigeed ka cayilneed hadda maxaa dhacay abra hadda waa yara cabtowday وعطيمو istaalkan inuu sacay waa dhici kartaa ما يحا واتخل مالمها يعطي إلا نغضو yes أنا أطلعكم بحيو هاي ما مبالغ ما يقراص بيع عادي لك ساحة عشان ما يقدر الله مرة بريسي باصدا الجوجي عادي والله ساحة تشتيت بيعطوا أنا سيكس باكس والله يموت والله ما لك ما صوب ما عنك ما بانجين نو لك هذا صوب عنك ها سيدي وكل بانجن حلوة رستان مصور أستين بس مصور ديارين بيا واحد marka galaas biyaha lagu saxdo daarad weyn jiibina noqoto laakiin soo lismo weydiinaya hadii la yiraahdo lama cashayna habeenkii mararka qaar la yiraahdo dhibaato ay dad batay karine cashada waxa lagu degdeg ma meesha lagu helo hay hadhow teen la saxdo hay 12 saac maghrib habeenkii 4 saac habeenkii 4 saac marka bariis kala ka daba geen galaas biyaha tahay aad u maasantahay waa soo noqon doonaa falanqeyntii arrintaas aad baan u jecelahay inaan u soo dhaweeyo telefishinka CNA agaasimadeeda ama agaasimihiisa Cabdiraxiin Ilbuur oo halkan nala jooga qorana Cabdiraxiin magaci xataa waa khalad waa isku dumin mo kala mid ah laakiin dadku saxaya fadhiyo dhib ma jiro waa yaraha marka wada wala isku Cabdiraxiin soo dhawo shaqaalaha RTN wad kamid ahayd aad baan u jecelnahay in dadka iyo daawadayaasha Ibrahim Geedow macsalaameyntiisa caawad horta marka koowaad Ibrahim Geedow waxaa leenahay safar salaam wuxuu ahaa saaxiib qaali ah kuwin RTN maxaan ku raahday boos muhiim ka hayay laakiin waxaan marayaa Shablaala joogo wal fiican daa boosaskaas marka Ibrahim Geedow cawaala wax leenahay waa saaxiib nagu weyn ma jeclaan inaan sagootino waxaan jeclaan intaan halkan joogno inuu naga barbar shaqeeyo laakiin qorshaha shakhsiga iyo noloshu markasta isbedel ay keenaysaa dadka kala fogeynaya nolosha sahankeeda waa qayb ka mid ah marka runtii waa saaxiib hadduu naga maqan yahay iyo hadduu nala joogaba nagu weynaan doona waxaan u dirayaa hay kuwin Elizabeth مسؤوليات نص بعد سعر marka waxaan leeyahay kafaa'ideysta dadka kafaa'ideysanaysa oo soo ceshanayna jabar la wadaagto inaad jidin la cunto inaad jid la marto saddexdiiba rag la maray Ibrahim Geedow bacaa oo ka sheekayn doona barnaamijna diris ku lahaa magaalada saaxiib ku lahaa 9 saac habeenimo qoodka la wada cunay jiray xilli dambe wala isku wada doona walka dhinaca farsamada ayaan ka codsanayaa mid kamid ah muuqaalada xasuuseedka Ibrahim Geedow iyo RTN inay noo ciyaaraan
kulanti wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada wararka RTN TV oo xilligan si toos ah idinkaga imaanaya stuudiyaha magaalada Nairobi. magacaygu waa Ibrahim Gedo Awaale. qodobada wararkan xilligan ku daawan doontaana waxaa ka mid ah محمد باشا خليف مدح ورarka telefishinka RTN باشا soo dhawow. aad iyo aad u mahadsantahay runtii caawa waxbay nooga duwan habeenadii hore waxbay nooga duwan habeenadii aan shaqada ku jirnay oo halkan aan joognay waxaan marka hore runtii aan safar salaam dhahay walaalkay saaxiibkay wariye ruucada Ibrahim Gedo Awaale hada sida arkiiseen ba Ibrahim kaliya ma aha wariye sheega ciyaaraha Ibrahim boss walbo RTN حتى حاسوستا marka kombiyuutarada xumaadaan inuu wixii jiray Gedo kombiyuutarada kale marka waxa la ingiriiska farsamo yaqaan baa xitaa u socdo marka Ibrahim marka wax wariye maqan yahay waa la buuxinayo ama barnaamij maqan yahay ama report banaanka hatta waxyaalaha xasuusta waxa ka mid ah Ibrahim marka magaalada wararka dhacayaan warar weyn ay jiraan ama wasiir imaanayaan ama madaxweyne imaanayaan ama dad muhiim ah wadanka imaanayaan Kenya Soomaaliya ka socda codku soo duubi jiray codku soo diri jiray kadib halkaan la muuqaalka laga saari jiray kadib wararka lagu qadan jiray markii han of ama shaqo qofka lagu wareejinayo ayaa waxa la yiraahdaa hebel uu wanaagsanaa saas buu ahaa markaan sheeka aniga aan sugayo xiiseynaya ayaan jecelahay qofkii hayay inaan aado waqtiga aniga markaas ku imaan waxa leeyahay farxiyo barro qaybta wararka ka wada shaqeynayeen iyo barnaamijyada wax badan ay iska warhayaan marka dhinaca kale loo yimaado waxa la leeyahay حسين شينه iyo qadar iyo asxaabta kale waa dhinaca maamulka asxaabta laga eeganaya waxa la yiri marka xarag kasto dadkeeda iskale marka maadaama bahda sportiga aan Ibrahim Gedo goolo fariisanay waxa salaada Shabalal caaw sheegi doona والله horta Shabalal wax badan oo caawa kaliyana maxay tahay ciyaaraha kuma jecliye dadku aad uga qosliya markuu TV-ga yimaado waa laga dareemaa Shabalal mislada caawa nolol xarabiyaala ka soo bilaabato ka shaqeyn doona waa waagtaay Shabalal adan kugu soo dhaweynayna koodhe صح hadda dadka meeshan fadhiyaan kulay waa qosli doonaan oo leena waagi buglaha ka shaqeyn doonta buglaha hadda magaciisa saddexna sheegtaan la dakaro هذا هو عبد الفتاح عمر برقبلي على كل حال شكل ابراهيم وحده waa laga dhahay ficnaan waa laga dhahay laakiin aniga waxa ii sidee ninkan Ibrahim Gedo Awaale close friend ana saaxibi intiina kale meelaha kale isku aragnaya soo isku doonaya isku ana hay ameeysa xataa mar dhow leeyahay على كل حال حط الشيء على الكورة هذه الكورة وحكى عن ملك حلب الجول اللي يدلي وحكى عن ملك يعني كل الشخص أبو بدر سيدا شيء من 99.9 وحاولي يبان جدو وأنا تبينا هذا السليدي الكورة سيد الكورة اللي منه شبرا صعوبة برموا جدو وتبينا مسكحة صف مسكحة كوكا ما كان تصور الكورة 1 hour صحنا برنامج ساسو يتسوى أشي صحنا كوكينا isfahan ki keenay su'aasha meesha ka ahayd fahmay sportska qofka waxa adag in qof uu wafuutahay inuu imaado oo sport soo jeediyo oo su'aalana weydiiyo laakiin waxa adag analyze levelki la falanqeynti levelki la falanqeyn lahaa inuu fahmo oo su'aashi control ku ahayd keeni karo marka talentigaas qofka wuxuu dhasho waaye waa tahay Shabalal kuwa badan waxaan dhahan BT Sport operation kuwa badan waxaan dhahan Sky Sport operation kuwa Super Sport waxaana gaarsiiyay levelkaas Ibrahim Gedo maxaa yeelay waxaan iska rabaa su'aasha taageerayaasha kubadda daawanaya sidoo uu wareegayso inaad keeni kartid taasna Ibrahim Gedo waa keeni jiray su'aasha taageerayaasha kubadda daawanaya muxuu macallin hebel maanta waxaas uu sameeyay Ibrahim Gedo uu keena anyway haddaan kasoo bilaabo Ibrahim Gedo Awaale runtii saaxiib waaye aniga si gaar ah waan tabi doonaa sidoo Shabalal uu sheegayba qof walba Ilaahay subhanahu wa ta'ala لله في خلقه شؤون قفل بلا يسب ومايا قاب كان RTN سبورتس كا كل لوجو جعليها wax kala ma ahan waa xirfad u gaar ah Ibrahim Gedo oo keensaday
waxaan u maleynayaa inaysan jirin ama horey u jirin way dhici karta telefishinna gadaal ka sameeyey laakiin ma jirin telefishin soomaaliyeed af soomaali ku hadlaayo oo ciyaaraha qaabkaan u falaqeyn u falaqeeya male taa marka waxaan dhihi karnaa nashqada iyo nooca isagaa keenay waanu ku mahadsan yahay marka laga imaada runtii Ibrahim aniga hortiisa wariye ahaa maadaama aan ka weynahay Ibrahim wuxuu ahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala meesha uu socdo horta nabad ha ku geeyo oo duceyn laakiin wuxuu ahaa saaxiib runtii asxaabta isku haay sida hore loo sheegayba waana la tabi doonaa nabadoo waaye wax badan oo laga faa'iido way jiraan kaliya ma ahayn RTN ma ahan garoomada galaa waa la isla ciyaaraa tiimkeena oo dhan waa isla ciyaari tiimka wariyaasha timid ha haddaba soomkii imaaday marka haddaba la tabi doonaa nin oo dhaxda ka ciyaaro kabtanka ah kooxda kala wado runtii waa soo marnay markii adi oo 10 qofood leeyahay garoonka 7 lagu galay ama 6 lagu galay labada qof sida loo kala dooran lahaa inay ku qancaan inta buu sameey jiray runtii saaxiib oo geedo horta waa ya haweenin ya haweenin ya shabalaala jooga booskiisa shabalaala buuxin doona maya shablaala dhinaca shaqada buuxina laakiin qof walba saaxiib uu leeyahay qof walba qof geedo adig maanta meel ku taagan Ibrahim geedo cawaale horta saaxiib aad qaali igu ah shaqada marka laga soo tago horta TV waa ninka ugu soo dhaway Ibrahim marka inta laga hadlo Ibrahim geedo cawaale iyo Dahir Shariif cawaale labadaba horta geedo taariikhdiisa kooban horta geedo ha wax badan ka aqaana geedo ku dhawaad 10 sano ugu dambeeyay waa dhihi karnaa hadda 2019 dhaxwa maraa inkastoo asi 10 sano uu joogo Kenya geedo Nairobi inuu imaado horta waxa ka dambeeyay walaalkiisa Dahir Shariif Dahir Shariif cawaale ما هو تاريخ طبعا معناه أنت نبينا تاريخ الميسين تاريخ الميسين مركبت جدا نيروبي إماتين كيس واحد كده بداير شريف عوالة ولا كيس داير جدا نيروبي مركو إمالي حرفته وحكسه بلا مش هو سيسو قف كم معناه كسر اسمي كرو هي جدو وبسبب قرجري وسوجب هذه إلا هو وسوجاري إن رالي لوجو رالي وين بركولن أو اسكتي ما كولا نقول مركز دمبة مركا من تاريخ دور صحافة الأول بس شقية أولي كرا ما أنت عدي وبسات جديد وبسات كانوا يكون شقية سكرة رالي وكان كرا جدو هالمال وحسوا سنة هي إن وانك كلية أرتا إن وانين أهد ودقن حدنا ma jirto qofka maanta markuu RTN ka shaqeeyo meel kale uu ka hadlo marmar soo kama soo dhaxgalaysa halkan waa RTN aan barnaamijkii oo sheegi jiro kale waa dhacda oo barnaamij shebel laakiin barnaamij kale oo ku jiro geedo ma dhacdo TV rally magacan isku qalda ma dhacdo وسير ها مستحيل شو فهمتها موسكو قلبي وانك عاوية معجزة السؤال انت كنت قاعد دوراني كهلا ما كسويس انه RTN برنامج فريدي فوتبول ما كسويس ما نقفايا حتى مدة معجزة ومداس قفك عقلي ولا اللي سكت حلوة وطاي marka geedo saaxiibkii ayaa doona ku xasuusta koobka Ramadaanka wala tibid doona inkastoo geedo hadda ka hor لكن qalad waxa jira asoo qalad lahayn xataa jaalin lagu siiyay hadda ka hor saaxiibkii maadaama cawada baxa wala kaftamaa geedo waxa jirta kulan oo la wada ciyaarayo garoonka Khaliif oo nin ku xoog badan uu ku dhacay geedo asaa dhacal Albitro asaa jaalin la siiyay marka geedo inta marka geedo waxa badan loo xasuusin doona waa nin aad u dulqaad badan waxa waaye ataro waxaad aad ula socotay xaaladda wariyaasha ee 2010kii si fiican xilligaa timid maadaama aad sheegtay xilligan horta waxaa dhacdo aad baad u labis badnayd si fiican wariyaasha intooda badan kama shaqayn jirin si fiican geedo wariyaasha ku joogay markaas libiska markii loo yimaado adigu ku soo gaaray geedo 3-4 labista kamid ah aniga taaliil 3-4 qof labisato cabstar Allah naxariisto taaliil colaad
geedo aniga marmar waxaa na soo geli jiray oo nasoo boos soo cariirsan jirnay dhaan honesta hadda Sweden meesha ugu dambaysa jooga asagana jaakada kor soo sii jiray bas idinka bisida waa jirtay ha marka aniga taay ku dirsanay taay waxa jiray taay xiligaas waa taay laakiin dadka qaar ma xirin jirin baa taay meesha aqooni inkastoo farsamadeenna lagaga baahan yahay su-aal baa ogsiin doona laakiin su-aal baa jeclana markii mushaariyada iyo raashinkii xaaladii adkeed laga sheekeeyo Ibrahim Geedo sida maanta dadka uu kala celceliyo kale markii qof wax laga dhamaysto oo soo baahan yimaado xanaaqo marka la garan jiray والله horta geedo dhanka cuntada markay imaado dhanka cuntada asii waxa waa Soomaali qofka markaas duumaqay wixiisa la cunaa dhinaca ka cuni jiray waa Soomaali tan kale oo dadka markay isqabtaan oo macnaha dhaxtaanka in qofka la kala qabto oo maslaxad la kala dhax dhigo taas uu ku fiicnaa geedo xataa sometimes markaa fiiriso dhaqankiisa iyo Soomaaliya soo dhaqmaan laba kala tahay marka ay isdhayn maskax oo Talyaaniga ku xiran fahanti boojinta ma Talyaani waxba boojayaan waxba boojay jiray maya geedo macnaha ayuu taayna door ku sii jeedinaa مسخولة كذا أرجع هات جدا يعني صاحب كي على ما دام هيك يودن بس إتا هذا ما علنا ويا أسكال سو شقين راديو وأنا بركولن وروها إن أسي محمد شورى يقرب شقين جري عيارها مركل له نكانوا ساعات في الكمبيوتر كله ميكروفون كي نمبر 1 يسوي جي نمبر 1 حتى تتبع استعمال جري نمبر 1 أوجينا تويتر سكاي أنا جوا فيرنا وأنا كم فاهمين أنا أصلا بيجي بس إنجليش كانوا آخرنا marka waa nin horta professional heerkaas ka gaaro waaye luqadda ingiriiskana ku fiican kulli horta ingiriiska doonta barasho luqadka ma rabto kaliya waxaan rajayn doonaa sida dad badan oo qurbaan markay tagaan ayagoo bidaar la usoo laabtaan geedo timihiisa la noo soo laabto laakiin ciyaar oo open ah ala filayaa haddaysan Manchester philosopher bedelin Liverpool always open waaye conscious-ka Liverpool oo iswaardiyeenta way ugu mas'uulsan tahay Manchester marka loo fiiriyo markana xubintii isboortiga ee warka waxa stuudiyaha nagula sugan wariyaheena Ibrahim Geedo Cawaale haye Ibrahim ma sateen intisaar iyo Faad Xaji Abdulle kooxaha magaalada Manchester ka dhisan ee Manchester United iyo Manchester City ayaa guulo ka gaaray xalay kulamo ka tirsan horyaalka dalka Ingiriiska kooxda Manchester United ayaa he told me this is good. You can do this one and you cannot do this one. That's how he. aad baad mahadsan tahay thank you Paul sida Paul noo sheegay waxa uu dhahay Ibrahim Geedo muddo ayaan wada shaqeynayna wana xiisi doonaa saaxiib fiican buu ahaa wanaag baan u rajaynayaa markii uu London tago oo inaga taga anaga dhinaca soo dhow waliba barnaamijka sportiga ninka sida goolida u dhigay weeyaan soo dhow iyo barnaamijkeygana marka hore salaamay dhamaan shaqaalaha RTN gaar ahaan waxaan salaamayaa Ibrahim Geedo Cawaale kullay walaana zaki Allah ahad wala sheegay Ibrahim taqaanay wanaagiisii dhanna waxaylaan ku xasuusto waxa kamid ah qaybaha salaada intuu barnaamij soo gelin kor waxa ka soo masaa ku jira arkaysa maruu ka baxan masaa ku sii gariya hadana ma sha Allah marka waxyaalaha taqaanay ya waa maqribkii cishaha ha maqrib cishaha casarkii intaba marka waxyaalaha aan ugu bogay bay kamid tahay deganaanta iyo mataqaanaa dabeecad wanaagsan intii aan wada joogno wada shaqeynay waa nin aan aad ugu bogay ma sha Allah masaajidka Mubarak xaga baan wada degneen familkiisa isaga iyo Daahir marka qoys wanaagsan kubadda isku soo gaartay masuudiga weynaa Ibrahim Geedo hada taas ka jawaab malaha dad ba aad ii eegayo marka ma ku fogaanayo marka laakiin nin Soomaali leh oo dabcan qoys hibooliyaal ah ka soo jeedo oo runtii xurmo badan oo macallimiin ah oo fan leh de bulshadu markii ay dhan waxaan oran lahaa Geedo ina telefishinka RTN si fiican marketing uga hagaajisay London ugu dambeyntii waan jeclaan lahaa inaan hees uga xiro aniga Soomaaliyan ah laakiin heesaan aad u jeclahay waxa waaye Hindiga Swahiliga iyo Boranka laakiin hees Boran ba aad ula jeclaada hadda la uma heesayo WhatsApp-kiisan uga diraya meeshaad joogtana waa gurigaagii una ku noqoto waxaan rajaynayaa inaad ka dhex bixi doon RTN oo noqon doonto qof magaalada baad ka bedelatay mooyeen waa shaqadaad halkaaga maad ka sii wadan doontaa
khayr badan aan ku rajeynaya insha allah la soo wacay dad madax la fadhiya le hore ka cunug u qubay hore loo soo qaxay marka taas ku soo qatima geedo mustaqbal wanaagsan oo rajeynaysa ka stuudiyaha waxa igula sugan Ibrahim Geedo Cawaale oo alaaba ku barateen dhinaca sportiga iyo waliba faahfaahintiisa imikana waxa uu inoo eegi doonaa qodobadii ugu dambeeyay ee dhinaca ciyaaraha ah Arsenal oo laga badiyay oo muddo 2 bilood ah aan laga badin haye Geedo Cawaale maxaad nooga haysaa arrimahaas isaga loo maasantahay waa warka ugu weyn Arsenal oo 3 bil baan iraanay dhinaca horyaalka Ingiriiska aan laga badin ayaa xalay guul dareysatay kooxda horyaalka difaacanaysa Leicester City iyo kooxda Arsenal ayaa labaduba guuldarooyin la kulmay xalay kulamada 16aad ee horyaalka dalka Ingiriiska ee Premier League kulanka Arsenal ayaa garoonka Goodison Park waxay kula ciyaartay kooxda Everton oo ah kooxda garoonkaasi inta badan ay Arsenal ku soo badin jirtay hase yeeshee 2 gool waxa lagu garaacay kooxda Gunners-ka Friday Football waa nagitaas waxa soo saaray markaad la socodsiin aniga Ibrahim Geedo Cawaale waxa farsameynayay umad cilmiya Samahad Injineer Maxamed Hussein Gaashan iyo Maureen Wanderwa tibitaan kulmi doono isniinta soo socota amaana Allah watahay saaxiibayaal markaan gabagabadii ayaynu soo gaarnay Ibrahim Geedo Cawaale ayaynu mikrofonkii ugu dambeeyay ku wareejinaa laakiin intaan Geedo asan ku wareejinayna hey okay waxaan ku sheegaa dambeeyay Geedo ku soo galaal igu weydiiyaa waayahay watahay Ibrahim Geedo waxuu diin macna saxaafima hamsaani iska fahmo okay Geedo soo dhaw wadoo ma anaga ku wareysanaynaa marti camal سؤال ما وديني سلمس وحلا كم مقرر لكن وحنا ربعنا كودي ضفر بدن بعطاره وكميديا حتى وحبي نو ودينا مع إنه سوبر بيبل حقيقة هرت ضد سوبر بيبل ولا الناس لكن إبراهيم كده عارض كقر فيك حتى أمنا يعني سؤالها أول بانو اللي يديه كم تاو اسكو أدستمع عاس يحبك من الجيران إيه لكن هم يسوون لي بالجمعة سير عسن برام قدوا عوال الجمعة كان بيرك معنا ومع صومالي صح صعود سو شيء مركا سوبر بيبو وحيب حدا مير ظاهرة إبحي نكان هذا شيء سين مانترن دار شريف على ولكن إننا سلسو كرنا هالجري سوبر بيبو تعريه تلياني الله تكبروني يغنى تذكي هراء فيليبو إنزاغي لكن نستيسا سوبر بيب هايد وطلياني يوفنتوس يحيار جري اي سي ميلان انت غير من لها خليغاس انزاغي دعدعاي الله marka waan caata ah ana amal ah noobana ka ciyaar jiray number 9 marka ana ciyaalka xaafada 9 u ciyaar jiray markaan dambe soo weynaada dhaxal isku bedelay AC haday sheegay laakiin waagi hore number 9 ama noobe booska dadka xaafada yaqaanay farta ka xirana aha xoog badan ma lahayn farsamo badan waa iska lahaa marka waa caatan aadna u gool nasiib badnaa marka daahira ay bixiyay bibo biti gool oo laftirkiisa nin farsamo badan ma shabalada yaqaan nin reer Talyaani oo marka saas igu dhigtay magacyada ciyaalka xaafada ku baxan ku u badan dadku dhaga waay laakiin inta badan markaan iskuulkii iyo meediyahaba waxa ku badnaa magaca Bahay Geedo inta badan Ibrahim qof yaqaan ma jirto hooyaday marka laga reebo iyo familka laakiin dad kale ama Geedo ama Bibo marka Super Bowl saas ku yimid madaxiisa Allah ka soobiyo Soomaalida waa iska aggressive inta badan iska xaq jira ma agaal waay maxaa ku filaysaa wax iska leeyahay laakiin shidada adduunka inahay magac ciyaalnimo waxaas tahay maana ama ma jirna umreela watahay muddo dheer RTN ka shaqeynaysay waxa waday barnaamijka sportiga wararkana qayb baad ka ahayd bal barnaamijkan sportiga quruxda badan ee la daawado waliba leeyahay waa kan ugu horeeya TV-yada maanta ka baxa dadaalkaad ku bixin jirtay barnaamijkeeda aad ku soo saari jirtay sida dadka uga iibin jirtay bal waxay nooga shaqacaa horta waa in halcilna kulli dhamaan shaqaalaha RTN hadda 3 sano wax ka dhimantaa umaleynaya oo dadkii bilaabaan ku jiray qarala si Fuad Haji Abduli oo fikirka lahaa markii hore asla bilaawna meeshaan daan fadhino jimi markii imaanayay studio waxaan isla dhisnay barnaamijkan markii hore aniga sports ka ahaa ila waagaan yaraa meediyaha inta badan sportska aan ku jirin kasto meelaha kale aan iska xogsan jiray markii bariis loo baahdo waxa igu horeysay Universal iyo barkulan sida atoraha uu sheegay labadaba qaybta sportiga ka qaban jiray badana kasto waxyaabo kale aan gali jiray soo markii in laakiin Universal Sports News la akhrin jiray
marka laga reebo toddobaadka hal mar waagihii dambe hal barnaamij qaban jiray laakiin sports newska iska taqaanaa 5 minute wararka sportiga hadda xataa tv ka bax laakiin qaabkan oo analyska ah naqshada ah waxay u baahan tahay horta hore xarumaha sidoo kale inay haystid live in haystid aniga live barnaamijkeena ku baxaa inta badan waxyaaba maintain gareyn waxa kamid ah in 3 sano waa hal habeen uusan baaqan siniin iyo jimco 8 waliba waqtiga shaabka laakiin ku fikirkaas fu'aana isla garanay fikirka badankiis isaga lahaa hadaan been ka sheegin shabalala hataa fu'aadan iskan baray oo tv-ga intaan furin ka hor barnaamijkan dartiis dhowr jeer maqaa shariifka loo ku sheekaysanay in barnaamij oo bandit leh analysis leh oo super sport oo kale inaan samayn karno marka fu'aad iyo ani ninkana inta baan marka hore saan inay ka dhibanaanaysaa malaynayna laakiin markaan helnay agabka ugu muhiimsan in aad heli kartid live-ka feedka oo cayaarta goosgooskeeda ka arki kartid hortaada si aad u sharaxdid tan ugu badan maskaxdan ka waleestaas laakiin soo saaristii waxaas aan dhib uma lahayn oo inta badan ku dhex jiray waxaan laakiin farsamada waxaan islahaa ama ku adkaataa laakiin feedback aan dadka ka helnay sida shabaal uu sheegay reaction-ka absolutely wuxuu ahaa wax wanaagsan dadka dhalinyarada aad noola soo xiriiraan jecel yihiin 8 hadaa 5 daqiiqo soo daahan facebooka 100 qof kula soo hadlayso barnaamijka maxaa ku dhacay waxyaabahan kaga duwanahay warbaahinta kale kamid tahay RTN sidaan qiyaasaya waayahay gadow wax badan ayaad soo joogtay tv-ga oo aas-aasayaashii tv-ga ayaad ka mid tahay soona dhanaandhiriye haddana waxaad naga tahay safar maxaad leedahay ugu dambeyntii tiimkii RTN oo caawa wada fadhiya ku sagootinaya lagu hees waliba caawa lagu heesay aad iyo aad horta farxada ii tahay aan ugu mahadcelinaya shaqaalaha dhammaan dad aan isla soo wada halganay u badan yihiin tiimkan isla bilawnay farxiyaha ka joogta u malaynaya iyo England hadii aan qaldaneen sidoo kale insaaro gurdu ka tagtay dadka isla bilawnay ku jirtay dadka hadda joogaan shaqada ka shaqeeya marka horta waa iska amaanteen inkastoo qofku markuu gurjo wax badan laga sheegi karin laakiin waxaan qiyaasayaa waxa alxamdulillah 3 sano ku dhawaad meeshaan dhowr 30 qof waa iskala shaqeynaa malaa inta tagtay si isbeddelka iyo dhowr maamul iskala bedelay horta alxamdulillah qof isku dhacna ma jirin wandi xataa hal maalin xataa qof is afdaafna ma jirin marka wanaagin intaasaan ka qaadanaya waa u mahadcelinaya horta dhammaan haddii aan kasoo bilaabo tiimka aan isla bilaabnay hadda meelo kala duwan joogaan ilaa tiimka hadda jooga dadka ugu dambeeyey xamsi uu ka mid ahaa iyo mooge iyo dadka ugu dambeeyey okaashi hadda kusoo bireen bilihii ugu dambeeyey dhammaantood u mahadcelinaya waxaan sidoo kale waxyaabaha dad badan la yaabaan kamid oo tv-gan u mahadcelinayaa in dad Kenyan nala shaqeynayaan of Soomaaliya aan ka seenin bool oo kale dadkii isla bilaabnay ku jiray gabar Marin Wandar wallahi hadda naga tagtay safari iyo sidoo kale Cabdiraxiin Aweys dawladda way saataqaan walaalkiisa sida tiimka kamerada kamid ah marka si guud dhammaan shaqaalaha oo mahadcelinaya waxaan rabaa inaan hal u xuso maamuladiisa kala dambeeyay halkan haddii aan ka bilaabo Fuad Faarax Xaaji Cabdulle oo ah directorka ugu horeeyay barnaamijkan fikirkan bilaabay oo xogaa isla shaqeynayna 2 sano ku dhawaad one of my best friends ah wax badan fikradaha lahaa oo mahadcelinaya si wanaagsan oo soo wada shaqeynay horumar kale u rajeynaya sidoo kale Maxamed Yuusuf oo isna koodii hore intaan TV-ga hawada soo gelin kooraan isla shaqeynay kadib markii dambe maamulka noqday Ibrahim Baafo isna waqti kooban la joogay hadda oo Cabdi Saaq Socoto iyo maxamed qadar nala joogaan dhammaantood waxaan qirayaa inaan wanaag ku wada shaqeynay intii aan wada joognay maamulahaas iyo isaga kala dambeeyey naga sareeyeen anigana si gaar ah ula shaqeyn jiray ayaga shaqaalaha u dhexeeyay inta badan sida Shiine uu sheegayba marka dhammaan RTN bahdan oo aad u xumahay hadda dadka qaar shaqo tagis inay umalaan laga yaabay laakiin magaaladan bedelan doonaa Nairobi waqti badan jooga hadda London aan wareegi doonaa aan sabab u ah maahe wax kale ma jirin intaasaan ka dhigi karaa marka hal qof ma sheegi karo dee شبلالي إيسي شبال سو شغله برخلا إذا أنا كان أتفتحت على مرة لكن برخلا اسمه عمل أفتح فيسبوك وكله انتهى على الحمر إكس بالحلو لكن
waa qurbaa walaata sano halkan joogaa marka wuxuu ii sheegay in 30 sano meelahaas u dhiman cimrigiisa meelahaas sii joogi doono inta nabad kana wala soo saaray qadaata jecel yahay marka dadka aan tagi doono ku jira footballkana waa hibo ilaa dadkiisa ii sheeg waa jecel dadka isaga dhashaa jira marka dadka footballkan la yiraantiisa ku jira waa Axmed AC sidoo kale Axmed Ali Nuur sanadii dambe asbaranay reer afgooy wariyaashii oo ku jira markaan dugsi dhiganayo shaqo soo warrami jiray عمريس عفمان الله نسيه وأنا أستاذ جامعة إسكولة كلا دون أفقوي إلى حمر كوديجاي مركا تتكلم كبرت مقالنا تكون في عني كجران دمان أرتي عند حنسوكو بكرمها تيم ك أبي إمرجنسا أنا مبنيه لكن حاولنا لأنه أقول عن ستين إن فكر كان السكرين هذا برامج كان لسه قرأ الإنسان يعني حتى واتهاي بانجلو أدبر ما تنتهي وكلمة علينا عوا وحن نقدم تهابين كي وجودن بيسي وتلفزيون كRTN صاحب بدي كده وانا يكالا صعدا بل داودياش هذه أصحابتي الله شقيني سي حرونتي وقت كتجيس بل درين كهذا مركز صورة سمي هرتني هو RTN كلمة هم قالوا أنجعلها كتير دونا مرة نيروبي قالوا نسود ويسي سومالي دونا حلو إنه حسون أنا دور تونسن هذا أنجوبي وحنا حمر كهنا كهلي runta markii la sheegay la tanjila magaalada imid aqal badan lahayn xoog badan lahayn farsamo badan lahayn marka waxa uu muhiimsan adduunka nolosha nabadda marka nabad badan aan ku helnay inaan ku shaqeysano wax ku fikirno rag badan ay ka dhoofeen finalkii hadda aan ugu dambeyn doono waa magaalo transit horta rag badan isku baranay dad badan waxa qiri kara hadda cimrigeyga inta aan wax lahaa wax gartay in halkan joogay inkastoo xamar aan hilmaamaynin maxamed qadar oo dhinaca farsamada caawa qayb ka daadayna waxa uu leeyahay saaxiibka awal waxa uu rabay Mareykanka Trump xarnimaad ku sameeyay hadda geeska u degdegay Ramadaan ka hor saacado badan la sameeyay diyaarsan lagu leeyahay horta magaalada iska magaalo process dadka badankood dadka u dhashay marka laga reebo dadkeena aan yimid wadada transit iska wada shabaalo iska kenyaan laftirkiisa marka maraykan borsaskiisa ku jiray Trump Soomaalida iyo dadku waxna isaga jireen alxamdulillah wax badan kama sheegay laakiin waxaan ka wadaa su'aashaadii hore Nairobi magaalo jeclaa dadka kenyaanka iyo dowladooda iyo shacabkooda u mahadcelin u leeyihiin aan wax kasta oo ku soo maray magaaladan tuug waa ciiji waa la soo xilay xabsi macaan aan waa iska galay laba habeen isaga jiro super power ataa la ilaahay mobile qaataan marka waxaa soo dhan laakiin waxa ku muhiimsan waxaan ku helin xamar nin walaalka uu ku yaqaano in adeerka biskoolad ku wato inuu dilo rabo gaal ku yaqaano so marka inta dib ku weyn ku soo gaar kara inuu xiro waayo wax noocaas wax dib weyn maaha waxaas laakiin dadka ugu wanaagsan Afrika waxa lagu tilmaamay nolol noolaada dadka Kenyaanka inuu iyo Soomaalidaba waxaan rabaa sidoo kale inaan u mahadceliyo tiimkii aan soo shaqeynay dad gaar inaan xusaan rabaa waxaan rabaa inaan xuso watahay baan geedood badan mahadsan tahay oo ku soo laaban doonaan waqti yar ku siinay faxiya hadda waxa tiri gabadha jacala waxaan ku weydiiyay Ibrahim geedo waliba sheekadiisa aan ka sheekay ما هي مانتي مسوق حساسية أنا ما يقول سلامتي أبان كابلاوية وأدين أنت هذه سوء أدين إبراهيم جدو عوالم محات كذا هل إيه الله واحد بدن معها وقت ما يسنو إبراهيم جدو وقت مركي لقى هذا وصاحب بدو قولي دو أنا قان ليه مركي صحافة الله هذا أرتيان لو يما si guud markaan kugu soo kabo waa ninka sabab u ahaa inaan caawis ag fadhiisano RTN aan ka wada hadalno shaqadan aan ku soo biiro waliba aan TV kale ka shaqeynayo aad iyo aad Ibrahim Gedo saaxiibadii ugu dhow yaa dareemi karaysaa sabab aad aniga waxa jira markaan Nairobi imaanahay waa tahay Ibrahim Gedo anagoo wali farsamada leeyahay muuqaaladiisii ugu dambeeyay aan jecelnahay inaan ku qatino aan jeclay inaan sameeyno ku dheelay bal dadka ku daawanaya caawa barnaamijkan quruxda badan adiga soo gabagabay ما أريد سحر هذا السود هل أريان سوى ذي نيروبي مركان إمت وحن حسوس عشان مال مركان جوجي أي جد وحيري حمرا كإمادة أو بيه تبادلنا اللعب أو دب وكتيرين أو بيه أي عالين جد إيه ماذا هتلا عندك أنا وحدة فرحية بيه تبادل معتها
ها ده محانا نعبد هذا عبد جرت ما أنت اللي قبل شن بري عمل جوا نيروبي ده شن تبري مركب بيات بدع وحير ما أنت كبعد بيات تفضل هذا نفط عبرتها طبعا ما حدا عاير مكتب ما حدا محد بقى بيات وحير التايفود iyo blood infection haddaad inaad ka badbaado aad rabto iska ilaali yiri biyaha tubad maalinkaas wixii ka dambeeyay xataa cabitaanka biyaha si jalaataysan waa tahay barnaamijka ibraahim noo soo bartamada waxaa leeyahay muuqaalkiisii ugu dambeeyay maadaama kuwiisii hore aynu shidnay muuqaalkii ugu dambeeyay oo RTN oo ka qabtay TV-ga aynu aragno hay بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا وناكسن داود يا الملك استو الجوكتان كسر هذا مركل يوم برنامج كفرايدي فوتبول هذا نوكليات كداوتان تلفزيون كارتين ما يقول إبراهيم قد عوالي برنامج كأنت سبضنا إحنا كوي قدرنا جامبيونز ليج تطبيقات كان كل مدي العياري قارهان لوكتكو هذا السما فاينل كا بارسونو جول وين كجارتي لوكتكو هذا فاينل كان هذا هلوك لقى شيء كتير مركز سدح جول وحبايكو قرعة ليفربول توتنهام وجرون كود لقات كذا أيكس أمستردام wiilasha daada yar oo iyagana wacdarnahooda qaaradda Yurub ee sanadkan sii wato oo ku soo adkaaday garoonka cusub ee Tottenham Hotspur Stadium kurbadaasi aynu ku eegi doonaa West Ham macna dara ah muhiim ah wanaagsan jamacarkin ayagoo gool raadinaya ciyaarta ku dhamaatay ayaag horyal furan waa hal toddobaad ka hor dhamaadka Premier League aan barnaamijka Friday football أنا قلت شبلالة لقيها برامج الحصصتين ونقضوا أكو ما علنا شبلالة برامج كا طبعا إلى قيب كلا إلى نص ساري ما علنا سلوك البول مقابلة يسافري ورنا كاميرا النوتوبي مصلحة أبو بكر حاج وفرسمني وإبراهيم قلتوا عوالي وبرامج شو ساري سمر كان يدل السعوديين دبتين وكل بدونه جماعة ونكسر وتهاي وحوا إبراهيم جدو عوالي برامجيدي ugu dambeeyay television kan RTN ka qabto waliba sportiga ku saabsanaa iyo tibinta iyo falanqaynta ciyaaraha Ibrahim hay haye gedo وما سنتي مرت لمان RTN حرت ugu dambeysay aan ka shaqeeyay ahayd Nairobi dula kala noqdo amri ugu gaarsiiyay caafimaad London u socda oo cusub ka bilaab raba magaalada intii aan joogay waxaan rabaa inaan mahad celiyo tiimka asoo wada shaqeyn dhan Universal saddex sano aan joogay xamdi kadiye oo mahad celinaya agaasimaha xafiiskan oo dadka ugu wanaagsan asla shaqeyna ka mid ahayd abaal badan ugu leh caruurnimadeedana aan dhegeysan jiray dadka oo farkotariska aan shaqada kusoo gaaray ka mid tahay eedii aweys foodeen yiraahdo barkuna iskala shaqeynay tiimka kale Universal lamaan oo mahad celinaya saddex sano asla joogay Axmed Ali Maxamed Villan jooga Maxamed Xuseen Nur Xaaji Xasan Umar يمولد كل دنبيان سكسو قارن يعني تستحجم تنين لهذا تخيل به من ترى لكن أنا سوكو بعد سلوك البركون تفتريني حسن حسون نمزا صار عثمان ديري ولا شيء هركم ذا سير هذا مقدشو سبب أنا الكاس كشقي تيم كي بنا ولا الكاس ينسل جونا شفت لتركي بريتش حسين نور حاجي يضمن تيم كي ينسل سوى الشقيني هالكاس يجونا من عيب عن كلها ومهد علنا وسيدو كله تيم كسير رويال تي في dadkii isla bilawnay niilaa Cabdikariim Xuseen Guutaale hadda kor xabsi aan isla galnay oo gaarisa hadda ku nool Norway Maxamed Usmaan Xabiib niilaa Sweden joogo isla shaqeyn dadkii isla soo halganay kamid ah telefishinkaasi cabar isla joognay reporter Allah naxariistay Cabdistar Daarsabiye ayaa madaxna ahaa tiimkii dhan oo mahad celinaya dhamaantood oo isku duwan asxaabtii halkan isku baranay qaybooda kala duwan waxaan ku tilmaami karaa walaasha Nairobi anaga qurbo joog aan naqaanaa qurbo halkan dabcan farxiba daa sheegtay qurbo nacsiyeed waay laakiin waa meesha ugu badan wariyaal ay joogaan ka shaqaysteen ku xamaasheen kana dhoofeen dibadahaasi kasii aadeen qaarkood iska noqdeen waxay ka mid yihiin wariyaasha ugu isku duubnida badan saxaab badan kulaha si gaara caawa naga maqan yahay seniorka saaxiibkay Umar Cabdi Xasan Umar Caaqil my best close friend dadka dhan weydiiyaan hadda muqdisho ku sugan ninkaas ilaa yaraanteena isku xaafad ahayn xamjiid inkastoo deganaa dhinaca kore laakiin iskuulka saxaafadda isla soo dhiganay taajiro waan rabaa inaan xuso macallimiinteedii ka mid ahaa saxaafadda iskuul al-Ghazali la dhihi jiray magaaladana isku soo gaarnay marka Umar Caaqil dhowrka sano isla joognay inkastoo 2010 ka yimid waa
saaxiibka igu dhawaa the only senior dhahan aniga Amar Cabdi Xasan oo qaranka u shaqeeya dawladda xamar ku sugan yahay wasalaamaya caawa ka xumaan naga maqan yahay laakiin inta rajina inuu ku soo dhaweey doono shabalaala uga tagay ninkaasi si wada shaqeyn doono u macsalaamaysi jannadina aaday waa dukaanka tagay إبراهيم كنتو حبا شاد جعلها حق عنك تاجنا إنه يبغى. أبشكر عيال الله حسا سير كله عاقل صاحب كيس أبشكر عيال الله يا محمد حسين. waxayna insha Allah gabagabeynaysan marka waxaan jeclaa qof walba xagan jooga oo saaxiibadana kamid ah iyo kuwa farsamada jooga halkaan yimaadaan Ibrahim la hagareeyo waa waqtigiisu keendameysay laakiin Facebook ay soo galay si muuqaalka u aragno marka qof walba ka hagareeyo insha Allah waa soo tirada si gabagabeynaya kaamirada eegaya ah markii ugu dambeysay barnaamijka gabagabeynaysa ma teamki ugu dhawaanayna hilmaanka baqa AC سو شيء اسمه حمراء ما يسمى على حول إبراهيم حمر وسعود مبت إبراهيم مركو دا حمراء هذا وحول إبراهيم فيسبوك ما هو فنان مزوصات حق لنا علي زي فيسبوك ما هو فنان ترى أنا سافر ارجع waxyaaba aan waxay sidoo maxaa kamid ah sida ani shabalada noona kale ilaahay waana kale ilaahay jirtay waan isku Faisal Qasim oo Al Jazeera عمل وقتها جعل برنامج كعاوة إن هذيك السوق ما شو قبيست سوق قبينا يا مركز شباب أنا عبسي قليل ما شوفت ما شوفت ما شيء أفكار ماشي على كسلام حافظ حمر جديد لا هذا نيك أصلا جالكسي كلام بوصع أدوك هالآلة الوقتي حتى يبغى يجيبوا مركوب حاجة كده أنا لايف فيديو ولا فرنا اللي جوا كلام هذا الشيء كسلنا شو ما أفضل السلام أفضل السلام وقت هذا ما marka magaalada si ay ugu dhartaa lan kala shibraale waxa way xogaa dhowr sano ka maqnaan la yahay wala xasada leeyahay zaad u jacayl meel ku soo jirnay lama ogeeyo magaalada waa iska jaamacad abshkur ciidan oo salaam ah saaxiibkii anaga salaamina dib isku arki doono aniga nabad qabna kulli magaalo kale oo shidana u socda warbaahinta aan ka barnaamijkan soo gabagabeeyay وما ستين سلا يشرفتين الله يشرفوا أنا والله دب الله نسكون كانوا نسكسو دعينو نلشة لما أنت نهار مركون نجار سلام نجدي آخر آمين آمين ستين بعد وكذي درهن كعيك هذي ذكني كؤهات انتي سيهي أقولي وقربي يعيل وكذي درهن كعيك هذي ذكني كؤهات انتي سيهي أقولي أنا كشيء لابتيدنا أروح كافيها وما أنجلي أقوليكي جبت أنقب كسوني دانا إلى دورتها أنا كشيء لابتيدنا أروح كافيها وما أنجلي أقوليكي جبت أنقب كسوني دانا إلى دورتها وانكفا وكعا ودراد بعدك يا قلبي كان كوغسي قرأ وانكفا وكعا ودراد بعدك يا قلبي كان كوغسي قرأ كالي كالي بكالي يارتاي كيبكا كومرهوني وانكفا وكعا ودراد
كعدكيو قلبيغان كوغو سي قوري وانكو فاوكحا ودراد كعدكيو قلبيغان كوغو سي قوري كالي كالي هدي كالي يارتاي كيبكا كمرهوني وكن يكون انت كامل هيك كحيكا حتى هذا قصه الكابتن مود وقوا كيد نفسي جاي وكن يكون انت كامل هيك كحيكا حتى هذا قصه الكابتن مود وقوا كيد نفسي جاي كل إيمان كيغانا كسبتو رنتي كوما دين كاري كوما نانتي هبلها كالي دارتو غوغو نما كوسدي كل إيمان كيغانا كسبتو رنتي كوما دين كاري كوما نانتي هبلها كالي دارتو غوغو نما كوسدي وانكفا وكعا ودراد كعدكيو قلبيغان كوغو سي قوري وانكفا وكعا ودراد كعدكيو قلبيغان كوغو سي قوري كالي كالي هدي كالي يارتاي كيبكا كمرهوني وانكفا وكعا ودراد كعدكيو قلبيغان كوغو سي قوري وانكفا وكعا ودراد كعدكيو قلبيغان كوغو سي قوري كالي كالي هدي كالي يارتاي كيبكا كمرهوني